السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبا سلام يا صحابتي إذا شرفت بدن ملك استاذ الدنيا كجوكتان وحيد الله يا خير يا بركة يا نور أندماني بإذن الله الرحمن دمانتي نبا خيرك الله نوافجيو جنال كداوانا سنواسيروخ شيخ جنال وأنا قفاد مورسن شيخ محمد ما شاء الله تبارك الله أدبا سلام يا دمانتي وحيد الله يا سود وادا بريها وحوي عرض وان كمقنا عرض وان حوغا ويرا ياعي ميلا u yaacay waan garan waaye xoogaa waa yara diday meel baan u diday astaghfirullah ilaahay rabbi rahmaan nacafi ilaahay cafi caafimaad nasiih ilaahay naxariistaada nasiih rabbiyow waxyaalo aad la yaabtaad arkaysaa adduunyada inta joogtid waxyaalo aad la yaabto ayaad arkaysaa waxyaalo waxa ku soo gaarayo aad naftaada u nacaysid runtii waxyaalo waxa ku soo gaaraya qalbigaaga uu diidayo adiga markaa ka hadashidna hadda ka horna aan dhowr jeer hore u sheego aan iri adiga markaa ka hadlaysidna dadka sibay ku arkayaan qofka kale markuu uu ka hadlayayna waxa laga yaabaa dadkaas inay si basiid ah u soo qaataan oo wax weyn uusan ku noqonin run ahaantii kilib la ii soo diray ma jecli kilibyada dadka inta badan inaan soo qaato ama aan kusoo halqabsado ama inta aan fikirkayga ka dhihi karo inaan ka dhaho ayaan jeclahay run ahaantii waxaan arkay maamadii hooyadii Soomaaliyeed ee ilmaha inta laga qaatay maxaan ku iraahdaaye ilmaheedii ayadoo ka maqan maanta xabsi ku jirto Soomaali oo dhan ay u baahan tahay qabiil aysan maanta u baahnayn qoys aysan u baahnayn waxay u baahan tahay oo kaliya magaca Soomaalinimo in lagu istaago iyo in duco lagu kaalmeeyo faataxada loo maro ilaahay loo baryo raxmaanka in loo baryo ayay aad u wanaagsan tahay runtii laakiin maxaa dhacay waxay tahay maalin dhaweyd waxa la ii soo diray live ama qayb yaro clip kamid ah oo runtii dadba sibay u arkaane ninka Holland fadhiyo uu leeyahay gabadhaasi hadday tahay gabar reerka yaga ahna waa u taaganahay oo waa u istaagaynaa hadday tahay gabar darod Ismaaciilna faataxan ku kaalmaynaynaa xaaji dabcasar xafidahullah runtii waa nin u taagan Soomaalinimada qabiil iyo qoys midna aan u taagnayn laakiin Soomaalinimada u taagan waxa ay yihiin dadka Soomaaliyeed ama hooyada Soomaaliyeed macnaheeda garanayo waxa ay tahayna garanaya run ahaantii waa nin aad iyo aad u jecel hooyooyinka Soomaaliyeed inay idoodi helaan inay helaan waxa ugu fiican inay helaan xuquuqda ay leeyihiin waxa dhacday in kilibkaas asaga ah live la soo galay live-kii asaga ahaana uu yiri gabadha hala ii soo xiro waan wareysanayaa oo waxaan weydiinayaa qabiilkeeda iyo qoladay tahay cajiib qabiilkeeda iyo qoladay tahay ayaan weydiinayaa gabadhaasi walaalayaal gabadhii yareed ee dhashay walaasheen Safiya hooyadii dibanaha ahayd ee Soomaaliyeed ee ilmaheedii laga qaatay ee ilmaheedii maxaan ku irahdaa inta laga qaatay dhibaatadana loo geeyo ilmaheeda qaar kamid ah u geeyeen maxay dhacday gabadheedii weyneed inay abtirsato oo ay dhahdo hooyaday waa qabiilka ninka Holland fadhiyo ba hadda eeg aniguna waxaan ahay bay tiri isla reer kamida laf kamida ayaan ah macal ilmaheedii iyo ayada Safiya waxay noqdeen isku qolo iyo isku qabiil fiiri isku qolo iyo isku qabiil waxay noqdeen ilmaheedii isaguna muxuu lahaa hadday daarood noqoto faataxada islaamkaanu ula qabnaa hadday beeshayda noqotona waanu taaganahay wuxuu u istaaga iska badaaye TikTok-gibu wuxuu saa ugu dhaxmeereysanayaa
sidii diyaaraddii xabashida inuu dad iska hor keeno inuu dad isku dilo inuu dad isku baabi'iyo mooyee damac kale ma hayo runta ha laysu sheego aawe reerkuu lahaa wax waan u qabanayaa hadday gabadha reerkeenna noqoto aawe xaggee yaade maxaan ku idhahdaa dadka kale ugu ordayaan soo hooyo soomaaliyeed maaha wax loogu ordayo qabiilkii uu shalay uu lahaa hadday qabiilkayga noqoto anaa xabadka u garaacanayo dad qaniyaan ka dhalannay saasaa loo bixinayaa lacagta waa la firdhinay wuxuu firdhinayay aawe firdhiski anigu lacagtan iyo taajirnimadan iyo adduunkan iyo balaayadan lagu sheego baan garan waayo afka laysaga hagaajin waayo caloosha laysaga hagaajin waayo wejiga laysaga hagaajin waayo jirka laysaga bedeli waaye lacagna la sheeganaya anigu waa garan waayo meeshay ka timi maxaa qaldan yaa maxaa la isugu ciyaarayaa meesha ciyaar baba ka socotee ma dadku isku dirayaa mise dhibbanuu asxaan u samaynayaa ninka noocaasi gabadhaas ma soomaali oo dhan bay u baahan tahay mise qabiil iyo qoys bay u baahan tahay sheekada daaroodnimona waxay meesha ku timi anaa hadda sheegayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa looga soo bixi jiray beelweynta daarood ismaaciil haddaad maqli jirteen qabiilada layasa ayaa looga soo bixi jiray maadaama daarood uu ahaa dadkii dalka laga soo qaxeeyey qofka waa ku qasbanaa inuu dhaho daaroodaan ahay oo uu sheegto daarood wuu ku qasbanaa marka macnaha keenay gabadhan ilmaheediyaa ah markii ayada loo waayey inay daarood noqoto loo waayey oo dad yaqaaniin ay imaadeen haddana waxaa la yidhi ilmaheedii ayaa daarooda ma aha ilmaheeda daarood ma aha daaroodna waa kiiska ay ku soo baxday dad badan baana magaca daarood ku socdo anigu kollay warsan sheekh axmed baahay qabiil kale kuma socdo aad iyo aadna waxaa la iigu kari waayey kaale qabiil kala sheego ilaahay igu og yahay waa la igu kari waaye qabiil kalena ma sheeganayaan ku yidhi kaygan ku soconaya oon sheeganaya kaygan waddanka ku imi saa waxaaba iga soo horraysay walaashayo kaygii ku socoto oon isku mid kala soconnaba qabiilkii kaga wada soconno dhalashadii aabbihii kaga wada soconno dhammaanteen qabiilkiina ka wada midna oonan xagga beeshii aanu u dhalannay aanan xagga midna u dhaafeen fiiri waagaas marka waxaa socotay in lagu diiwaangelinayay dadka ama lagu dhoofinayay ama ay ku soo baxayeen waxaan ahay daarood gabdhihii la joogay ee qaxootiyada qaar ka mid ah oo hadda ingiriiska jooga oo runtii ila soo hadlay iyo qaar yurubada ka mid meelo ah joogaan sida fiinland oo kale waxay ii sheegeen gabadhan iyo qabiil ilmaheeda inay isleeyihiin aysan carruurteedu daarood ahayn laakiin markuu dhibaato ay dhacdo ma waxay ku dhacday gabar qabiilkaas ka soo jeedo mise waxay ku dhacday hooyo soomaaliyeed daarood hadday tahayna dadkay u baahan tahay qabiilka uu ninkaas yahay hadday tahayna dadkay u baahan tahay oo kama maaranto marnaba dad kala maarma dadku ma aha hawiya daaroodna iyagaa dadkaysi ugu xigo iyagaa is dhaldhalay ummaddan way is dhashay laakiin adiga ibliisow shaydaanow cirkaa lagaa soo gamay ilaa adiguye qolo aad raacsan tahayna ma lehe kaad maanta sheeganaysood ku dhex jirtidna uma haysid wax wanaaga oo gabdhahoodiiba intaad telefoon soo fariisiisay gabar hooyadeedda xabsi ku jirta telefoon intaad soo fariisisay tiri abtirso hooyada ayay tahay adiguna ayaa tahay nin damiir iyo dadnimo leh haddaad tahay nin naxariis leh haddaad tahay nin nolosha wax ka yaqaana haddaad tahay
ma aadan dhihi lahayn yaa tahay ee waxaad sheegi lahayd oo ka hadli lahayd inaad qof islaama caawinayso dadka caawinayaanaad garab istaagi lahayd ma ahayn inaad soo dhahdid yay tahay qabiilkaaga markay noqotayna aad faryaro bidix ka baxdid waxaa maqli jiray jinkaa maqli jiray xaggee soo maraysaa intee soo socotaa soo soco halkan soo istaag lifeka ma wuxuu ka ahaa halkan soo istaag xubinta dhexe soo istaag markay soo istaagtayna fiidda hore ee moomaada dhihine adaa ka baxayba yaa adaaba ka baxay marka shaydaannimo dadka ha kula meeraysanin ibliisnimo dadka ha kula meeraysanin dayuusnimo dadka ha kula meeraysanin cidaad wax ka qaadaysid ma laha baryahana waxaad carrada ka dhex wadid waan ognahay waxaad la caytamaysidna waan ognahay waxaad la qaylinaysidna waa ognahay laakiin ilaahay markuu kaa dhaliyo dad badan oo ballaaran wax xun iyo wax sanba waa laga helayaa qaladkana meel kastaba waa ka dhacaa laakiin nin eegi waayey maxastiisa iyo marastiisa xabsiyada inta la dhigay hooyadeed gabadhi soo fariisiya leefkoo yidhi naa abtirso dabcasarna wuxuu yidhi adeer khayr allaha ku siiya haddii allah idmahayo haddee abtirkaagaa lagaa rabaa qabiilkaagaa lagaa rabaa sheego qabiilkaaga waa xaqu u leeyahay because waa lagu xira waa lagu xujeeyey hadalaa la yidhi inuu hadlo oo uu dhaho gabadhan qabiilkeeda ha sheegato waa sax marka dhibka qabiil la isugu abtirinaayo anigu waan garan waaye dhibka qabiil la isugu abtirinaayo anigu waan garan waayey ninka holan fadhiyow cidi waxba u qaban maysid dadkana dadka ha ku dirin gabar soomaaliyeed ha loo caawiyo shaydaanka inta la iska naaro bahalkan geesaha kaa saarana kusoo hurinayo anigu waxaan taaganahay gabadhaas walaashayna soomaaliyeed allaha raxmaanka horta gacanta cadowga ha ka soo bixiyo carruurteeda nabadana allah u keeno ilaahay waxaan ka baryaynaa ayadoo carruurteeda la joogta inaan dib u aragno ayadoo ilmaheeda la fiidsanaysa ina ilaahayna tuso raxmaanka ah ayadoo barwaaqo dhex fadhida in ilaahaygii raxmaan ahaana tuso taasaan ilaahay ka codsanaynaa isagaa raxmaanoo raxiin ah isagaa qafuura raxiina allaha raxmaanka ah isagaa wax walba awoodo dhibtana laguma waaro bilaa calaykum miyaa lagu jirayaa hadday xabsi qaadato oo xabsi ay gasho xitaa waqti bay qaadanaysaa wayna ka soo baxaysaa intuu ilaahay ugu talagalay uu ku jiraysaa inuusa ilaahay ugu talagalin wallahi isa ku jireen iyo billahi iyo tallaahi asxaabteyda waxaa idinkaga tegayaa qofka walaalka ah caawinitaankiisu in aysan qabiil kaa celinin taasaan dardaaran idinkaga dhigayaa runtii walaalka caawinitaankiisa inuusan qabiil kaa celinin u hadalka walaalkaana inuusan qabiil kaa celinin u dagaalanka walaalkaana inuusan qabiil kaa celinin dalkaaga difaaciisana inuu qabiil kaa celinin in aad dadka isku dirtidna in mar walbaba laga fiican yahay oo laga wanaagsan yahay faa'iidaysiga bini aadanka intaa isku dirtid aad ka faa'iidaysanaysid meeshaad ku gaaraysa anigu ma garan marka waxaan idin leeyahay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baryahan janalka waan ka maqnaa asxaabtayda kor hala ii soo qaado fiyuskayga hoos uu dhacsan yahay waa ujeedaan sheerka leeg iyo commentiga waa xaggiina liis ii sheergareeya igu sheergareeya meelaha idinku leedihiin ee aaladihiina kala ah insha allah tiktoka baryahan waxa ka socdana waan soo gudbin doonaa insha allahu biidni illaahi araxmaan dad badanoo waxaa jira tiktoka aan ku jirin laakiin fiirsado youtubada wixii lasoo dhigana halkaa kala socdo insha allahu waxa socdo youtubekayga ayaan soo dhigi doonaa anigoo ka warramayo siday wax u dhaceen iyo siday wax u jiraan intaba salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu